maanta waxaanu ka sheekaynaynaa dalka Mareykanka qaasatan Minnesota Minneapolis degmada lixaad xilligan waxa imaanaya wiil daayar wuxuuna rabaa inuu loolamo kuna guuleysto isagoo hamigiisu yahay sida uu sheegay inuu dadkiisa wax u qabto waa Jamaal Cusmaan muxuu ku loolamo waxaan ahay dhalinyaro ah oo magaalada Minneapolis ku soo koray 20 iyo dhowr sano u dambeeyay halkaan wax ku soo bartay haddana waxa u taagnahay City Council-ka Ward 6 xaafadda Ward 6 ee magaalada Minneapolis san u ogtiin baa anigu de social service baan ka soo shaqeeyay 15 sano u dambeeyay xoogga waxaan saaray shaqada bulshada iyo bulshada la dadaalka xaafadeena waxa ka jirta dhibaato aad u badan oo hadda aan la soo koobi karin xaafadda guri laan baa ka jirta xaafadda mataqaana caruurteena ayaa meeshii ku baabaaday oo drugs iyo waxa ku jira xaafadeena dhaqaale la'aan baa ka jirta xaafadeena mataqaana police reform baa u baahannahay arrimo badan oo issue badan baa ka jira marka waxaan u baahannahay qof shaqadiina garanaya shaqadiina soo hayay hadeertaana mataqaana dadku ku aamini karaan booska oo shaqadii ka soo bixi karaan Jamaal waa yimid waana guuleystay laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay dadku u sheegay inuu wax u qabanayo campaign-kiisana ku soo galay ma jiraan hal tilaabo uu ka qaaday wuxuu quruxda badnaa uu sheegay markaynu baaritaan sameeyno waxaanu soo ogaanay hal shay inuusan ka qaban wuxuu uu soo sheegay Jamaal markaynu hoos soo daadegno sidaan wada ognahay dunida mar qura waxa ku habsaday cudurkii COVID-19 marka ay timaad dalka Mareykanka dawladda ayaa u gurmatay shacabkeeda iyada oo baahi tiraysay caruurta iskuulada ka baaqday waalidiintooduna shaqadii ay ku waayeen COVID-19 dartiis in guryahooda la geeyo cuntooyin iyo caano balse Jamaal isla kiiskaas ayaa lagu soo eedeeyay isaga iyo Soomaali kale kaasoo ku salaysnaa inay dhacaan lacagtii loogu talagalay in caruurta wax loogu qabto bal la daawo. Meanwhile, a story first reported by the Minnesota Reformer raises new questions about a different food site started by the wife of Minneapolis council member Jamal Osman, which reported feeding 2,500 children per day under the same federal program allegedly exploited by Feeding Our Future. So far, Osman is not answering questions about the group. Court public documents show that Jamal Osman's wife, Elo Amba, founded a nonprofit that professed to feed needy children through the federal assistance program. Her husband, the council member, has not responded to requests for a comment. markaynu ka soo daadagnay Jamaalkiisu ku eedeysan yahay inagoo asxaan u sameynayno ma wuxuu inoo sheegayaa been kale aad u qayaxan isaga oo doonaya inuu campaign ku galo jawaabtu waa haa wuxuu inoo sheegayaa in dhalinyarada waddanka cusub heli doonaan laysino taasoo xaqiiqda ka fog mar kalena su'aashu waxay ka imaanaysaa isla dhalinyaradaas dadka dhalinyarada soo booday ma waxay u baahan guryo iyo meel ay degaan iyo cunto mise waxay u baahan in campaign lagu galo xaqiiqda waxay u baahan meel ay degaan iyo waxay cunaan Jamaal wuxuu campaign ku soo galay dhalinyarada drugska dilootay inuu wax u qaban doono arrimaha guryaha iyo booliiska shaqada ka tagaa saatee waxa uu ka qabtay ma jiro musiibadii hore oo taagneedna waxa maanta ku soo siyaaday inay soo baxaan ciyaal weero shacabka ku dhaqan Minneapolis qaasatan degmada lixaad Jamaal ma waxay mar kale ku dooran doonaan aqoonshaha wajigiisa iyagoo inuu ku eedeysan yahay kiisas kala duwan intuu joogana waxba u qaban mise waxa ay dooran doonaan midka doonaya inuu wax u qabto iyaga shakhsiyadooda iyo deegaankaba. Assalaamu calaykum magacayga waa Kiise Magan waxaan ahay musharax u tartamaya degmada lixaad ee magaalada Minneapolis waxaan ka soo qalin jabiyay jaamacadda Ohio State University waxaan bartay political science oo ah cilmiga siyaasadda kadibna waxaan qaatay masterkeyga oo ah public administration maamulka dadweynaha waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda Minnesota State University Mankato haddii aan ka hadlo shaqooyinkan ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah sheriffka oo Washington County ah waxaan ahaa askarta xabsi ka soo shaqeeyo waxaan u shaqeyn jiray attorney generalka xeer ilaaliyaha guud Minnesota oo waxaan ahaa waxbaare waxaan oo soo shaqeyn jiray county attorneyga Anoka oo sidoo kale waxaan ahaa waxbaare waxyaalahan jeclaan lahaa inaan wax ka qabto waxaa ka mid ah ammaan la'aanta waad aragteen degmada lixaad maalin kasta dad baa qaylinaya oo dhahayo booliiskan wacay ma imaanin waqti badan bay qaadataa booliisku in imaado sababta intaasoo boqolaad oo askar baa ka tagtay welina lama bedelin kuwa imaan lahaa oo bedeli lahaa aniga markasta waxaan u shaqaynayaa oo raba inaan ka shaqeeyo ammaanka degmada lixaad haddii ammaan la haysanin waxyaalaha kale muhiim ma aho ammaankaas laakiin wuxuu ku xiran yahay booliiska in la xisaabtami karo laftigeeda taas waa waxaan rabaa booliiska la hayrgareyn doono in ay ahaadaan askar dadka magaalada u eg camal inay qaar ahaadaan Soomaali qaar ahaadaan Hispanic iyo Asian iyo Native American minority community aan la deganaa inay booliis ku dhex jiraan taas waxay keenaysaa dadka inay dareemaan sharciga in loo siman yahay inay cadaalad jirto in booliiska la xisaabtami karo waxa kale oo rabaa inaan wax ka qabto oo public safety ah waxa weeyaan in loo waxeeyo programyaal ilmaheena Soomaalida iyo youthka magaalada degan oo aad risk ah in ay program la haystaan oo lagu mashquuliyo summer time-ka markii iskuulka jirin waalidka shaqeynaya ilmo badan baa la xiraa oo waqtigooda ay ku beerdareeyeen inay waxyaalo khalad waxeeyaan taasna waa laga fiican yahay taas waqtiga qaadanaysa iyo lacag laakiin waa wax investment ah oo community-gana u fiican weeyaan waxa rabaa kale inaan wax ka qabto waxa weeyaan
guriyaasha dhibaatooyinka ka jiro waad aragteen qof baa kala bixinayo laakiin meesha buildingka mas-uulka dadka ahaa oo mulkiilaha ahaa landlordka kama soo baxaya shaqada qaybtooda guriga inuu ahaado waa safe inuu ahaado waa air conditionerka iyo heatka inay shaqaynayaan waxaan arkay dad sheeganaya saas inay ahayn oo intaasoo bilood sugaya air conditionerka inuu shaqaynaya ayadoo kuleel tahay banaanka amba ayadoo banaanka tahay qabow heatkoodan shaqaynayn waa aragteen stooriyaasha newska kasoo daayay oo elevator shaqaynayn bil dhan ka badan waxaas wax la aqbali kara ma aho aniga waxyaalahan ka shaqaynaya waxa weeyaan haddii la doorto in ganaaxa landlordyaasha mulkiilaha oo mas-uulnimada kasoo baxa waayey in ganaax la saaro ka badan lacagta hadda la saarayo oo ah $100 ilaa $200 taas isbedel ma waxaynayso ka badanaa loo baahan yahay waxyaalaha kale aan rabo inaan wax ka qabto waxa weeyaan homelessnesska waad aragtay dad badan oo encampment degan encampmentkaas waxay u degan yihiin because meel kale ay aadan ma haystaan dadkaas inta badan qaar waxaa ku dhex jira Soomaali ah waxay u baahan yihiin mental health caawis waxay u baahan yihiin substance abuse iyo addiction caawis u baahan yihiin taasna haddii la siinin maalin kasta waad aragteen waa laga qaadayaa way ku soo laabanayaan midda kale oo aan rabo inaan wax ka qabto waxa weeyaan opioid addictionka oo communitygeena ilmaheena haysato East Africanka ah taas waxay qaadanaysaa qarash laakiin waxay u baahan tahay also dad communitygeena ah oo ka qayb qaata solutionka waxay u baahan tahay culturally specific solutions ya oo dadka ilmaheena inay dareemin stigma oo meelo dadkooda u eg inay ka caawiyaan taasna waxa weeyaan waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo